السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا مالك سودوني دافذ كجوكتان إسكسون نقد وناكسن وحن ربا إن وحيابا يرو إن كيرا قلدن عن بل استرادة بالمانتا وحون كده وحيابهن وضدك إن الصومالي دي وحيابا يكسو جيهين قاركين والغا يابا إناد قمن دعوتان مكات صومالي مقشان وانا ناركيو ميلها قلدن بي كميتاي أنا قدان قف صومالي كهالي أما الصومالي مركو يرادو ما تشرعودو ما عراضو ما ولولو واي صابتهم حيتين way aniga shakhsiyan igama hadlayo mushkilad bulsho haysato ka hadlaya laakiin dadkeenu qaladaadkay galaan baa waxa kamid ah waxaan nahay dad so reactive judgmental ah macnaha xukunkoodu dhow yahay maxaan dhahaa ficiladoodu dhowdahay degdeg badan aan u fiirsi lahayn baa in badan oo ina kamid ah inuu noqonay waxaad arkaysaa tusaale ahaan qof baa fikradu isagu leeyahay ka hadlaya intuusan qofkaasu videoga daawan buu jawaabaya waxaana dareemaysaa dadka badankood kuma dhageysanayaan inay fahmaan nuxurka iyo waxaad ka hadlaysid laakiin waxay ku dhageysanayaan sidii uga jawaabi lahaayeen hadalka tiri taasoo keenta in qofku ujeedadii uu videogan markii horeba u daarayba inuu waayaba dadka qaar baa xin u daara xataa culimada iska daaya sheekh dhanbu wuxuu daawanayaa muxaadaraadkiisa oo dhan siduu hal qalad wax u eg uga soo dhex bixiyo ka bacdina uu muxaadaro dhan uga diyaariyo waa wax iska caadi oo maanta la yaqaan oo wax la arko waxaa jirta qofka bini aadamka oo noranaya dadka waliba so reactive ka de reaction koodu dhow yahay oo judgmental ka ah dadka xukumo waxaan rabaa inaan maanta iraado hadad aqli iyo maan kugu filan qabtid fikradda qofku uu soo jeediyay intaad ku caayi lahayd booska caayda waxaad gelisaa adigu fikirka aad leedahay adigii baan fikir lahayn adigii baan waxbaba kala garanaynin adigii baa eber cidla ah oo sagxad cidla shamiita cidla faaruqa adigoo ah bad qof caayisa because waxaad kala sheegtay garan weydii that's a big problem wallahi that's a big problem maanta jira oo dad badan ay ku sugan yihiin subhanallahi alazim qofkan aad caayaysid aad aflagaadaynaysid aad u gafaysid baa dambi ka qaadatay aqligaaga yar baana keenay inuu halka qaldan ku dhigo lama caayo qofka adigu fikradaad leedahay loo sheega dabcan sababta qofka aad u haysataa waa fikirka uu isagu soo jeediyay baad ka soo horjeedaa sax aawi fikirkaaga adiga marka fikradii keentay qofka ka inaad khilaaftid maaday mise xaasidnimo bay ka tahay mise xin bay ka tahay mise uquuriwa bay ka tahay mise boosku joogo oo aad hinaansa ku haya dartii iyo masayr bay ka tahay isweydii bal isxukun intaadan weligaa wax qorin aadan waxba oranin isweydii ujeedada shaygan aan u samaynayo ama walahi horta muxuu yahay anigu waxaan ka hadlayo maaha idinku waxaad ii soo gudbisaan maaha commentiyada aad ii soo qortaan 99.9 commentiyada aad ii soo qortaan waa kuwa positive waa kuwa wanaagsan qof dhifa oo walaalkayo fikirka ay u khilaafo waana soo dhaweeyaa si wanaagsan baan uga doodnaa laakiin kii caytama markaa meelo loo diraa jirto gooniya oo san dib damo uga soo caytamaynin xabsi daa'im baan ku xukumaa shaki ma been ma fiicna qadcaytama xabsi daa'im baan u diraa sababtu maxay tahay waayo bulshada dhan ay kugu xiran bu akhlaaq xumo iyo cay u soo gudbinaya fikirkayga haddaad ugu khilaafsan tahay si tartiib oo wanaagsan baad iigu soo jawaabi kartaa laakiin ujeedadaydu maaha aniga inuu qof soo caayay oo wallahi oo ma ahan inaan idinka wax idinka tabanayo oo ma ahan inuu qof wax dhimayo aan hadda ma aha laakiin videoyada Soomaalida markaan tago ayaan waxaan arkaa dad badan oo caytamaya la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah dad muslimiin aynu nahay dad la ilaaha illa allah lehbaan nahay qofka muslimka ahi ma caytamo war waxaanad qoraysid qiyaama lagu hor keenaya kiraaman kaatibiin yaclamuuna ma tafcaluun war waxaad samaynaysid waa laga warqabaa ajasha ilaahay goortay ku imaanaysana moogid daqiiqadaha qortay ka bacdin lagu qabanayo heer aqli darradu waxay ina gaarsiisay inuu aakhiradeenni xataa ku gafno qof bini aadama marka mid baan rabaa inay raado dadka la degdega xukuumada maxkamadaha social media fadhiya ee dahsoon keyboardyada ka dambeeya waxaan rabaa inaan u soo jeediyo markaad rabtid inaad qof wuxuun ku diidantahay aad u sheegtid walaalo fikirkaagana sheeg laakiin adigoonba fikrad lahayn oo faaruqa dee qof inaad ka dabalulatid waa xaasidnimo nooc ka mid a ma fiicna adigu fikrad haddaad leedahay waxaa lagu yaqaanaa qofka wanaagsan fikraddiisa wanaagsan buu qofka la wadaagaa ee meeshii fikrad wanaagsan uu soo gelin lahaa caytan iyo akhlaaq xumo ma soo qoro midda kale
aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay Soomaalida in badan aan ku arkay waxaad arkaysaa gabar basasheeda iska jarjaranayso yaanyadeeda iska karsanayso suugadeeda karsanaysa oo social media dhex taagan baan ku arkaa ma ahan hal gabar laakiin in badan baan arkay fiidiyoda noocaasa oo gabdhuhu aad moodid inay oranayaan ninkii waan ka nastay ninkii waan ka raystay ninkii uma darsan ama qaarkood ay caayaysan ninkii oo leedahay wixii xunka ah ee la joogay noloshu iga riday kuwa kale fara badan ay safka taagan yihiin oo leeyihiin ragga Soomaaliyeed oo dhammi waa qariban yihiin waa kuwa lagu hogo lagu baay haddana raggii kuwa kale la mid ah inay safka kale istaagaan ka bacdina ay yiraahdaan iyaguna dumarka Soomaalidu waa kuwa baay oo lagu silcay silic iyo ba baanu ku qabnaa dhinaca marka laga soo tago dhexdooda markii la eegana xaqiiqada taala qofna ma raba inuu fiiriyo waayo dad waxaynu nahay xaqiiqada aan wajihi karin badankeenu runta ma wajihi karno qofka runta taabtay inuu ifka ugu nacabnay Soomaalidu waxa la yiri been ma mahmaado laakiin been waa sheegtaa sax badankeen ma jeclin runta xaqiiqada jirtaynu ku sugannahay qofka taabanaya kaasaynu ugu nacabnay kaasaynu durnaa kaasaynu liidnaaba Allah subhanahu wa ta'ala dardaaramada uu bini aadamka la dardaarmayo waxaa ka mid ah wa idha qultum fa'dilu haddaad hadal oranaysid war cadaalad samee ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا الله سبحانه وتعالى إن ليه هدي عرو يوحون قفكات حتى عدالة لماذا هكتجين سكستو قفكان أظن عبتاي سكستو قفك كان يسجسو هرشي دان عدالة ده أوجتجين واحد صحدا كتها غير نك الرجع كاسة لقوي قلنا مدبان ربا مركينا نرادو دمر كالصومالي دو كوا وحون كهالليسيين وين أقول جيران oo waa ka mid yihiin dumarkeena Soomaaliyeed dhinaca kale marka la fiiriyana kuwa ragga kamid ah oo iyagana wax ka halaysan yihiin waa inagu jiraan oo ragga Soomaaliyeed ah haddii maanta la yiraahdo bulsho dhan oo dhinac ka soo jeeda labkeedii oo dhan baa qaldan dhadigeedii oo dhanna waa qaldan yahay Soomaha wax cadaalad xumo ha waa cadaalad xumo waxay tusaysaa kan xataa saa oranaya maangaabnimada haysatay tusaysaa inuusan maan iyo caqli ku filan qabin bay taas cadeyn cad u tahay haddaba waxaan rabaa inaan iraahdo markii waxa laga hadlayaa ay wax cadaalad ku salaysan yihiin oo waxa laga hadlayaa ay runta tahay runta laq waa tan lagu garto qofku inuu qof wanaagsan yahay runta laq oo qaado aqbal naf ahaantaada ha isu diidin xaqiiqada jirta kibirka kugu jira yuusan ku diidin anu waxaan aaminsanahay rag badan oo dumar silciyay baabi'iyay noloshoodii eber cidla ah soo istaajiyay dilay garaacay wax u dhimay qaar aakhira u direen inay jiraan qaar aakhira u direen walow laba xirayba inay jiraan rag badan oo dumarkooda ku gumaysta biilkay siinayaan waa buuxan rag badan oo dumarkooda aan si wanaagsan ula dhaqmin oo waqti siinin oo xaqi ay ku lahaayeen ay ka waayeen waa buuxan waa inagu jiraan maanta dad Soomaalida waa ka buuxan maanta qabiil baan ka soo jeedaa dad badan oo idinka kamid oo idaawanayana way jiraan oo i yaqaano i garanaya haddii qabiilkayga maanta ninkii ag fadhiya oo maanta dhan caayayo jirkayga lagama yaabo in yar oo kamid ah xataa inay damqato sababtu maxay tahay maanigu caay maya dhibka yaa qaba isaga qaba anigu dhib ma qabo ninka caytamaya isaga dhib qaba anigu dhib ma qabo isaga xanuunsan oo jirin oo qalbiga ka buka bukaanka uu isagu qaba markaad la doodid de aduguna mid kale oo waalan baa tahay aduguna mid kale oo waalan oo caafimaad qabin oo isaga waxba dhaamin baa tahay dad badan waxaad arkaysaa diinta khilaafayo diinta caayaya oo sidaynu uga damqanno maanta qabiilkeena marka wax laga sheego ugama damqanno wallahi in badan oo kamid ah ugama damqanno diinta Ilaahay ya Allah hadii la caayayo markaasaad garanaysaa damiirkii qofnimo inuu dhintay taasaad ku garanaysaa anigu waxaan fikir ahaan aaminsanahay markaan anigu shakhsiyadeeda ka hadlo raggan safka taagan ee dumarka oo dhan waa baaba waa silic waa lagu qasaaray waa raggan leh waa maangaabta nagu jirtay ka raali noqdo gafkooda haddii aan iraahdo dhinaca dumarkana idinkaanu raali gelinteeda idinka rabnaaye waatan waxay qabatay intay garan weyday bay digsi dul istaagi ama meelaha ayadoo social media dhex fadhida la arkaya markaasay waxay leedahay Cabdi Faarax ama Luga Dhuub ama Calool Buur ama Bidaar Weyne ama Macha Dhuub caybay ka soo bilaabaysaa ragga Soomaaliyeed waa silic waa lagu ba'ay ha laga cararo ajaanibta ha la guursado waa halka xabbaydi ku jirta
labadan marka maxaa keenay inay dad dhan ay si jamac ah oo aan kala reeb lahayn u eedeeyaan maxaa keenay waayo caqligooda gaaban baa wuxuu tusi waayey halkan shakhsiya nolosha idinka labadiinna idin soo martay idinka dhexaysay ee aad isfahmi weydeen ee labadiinna wax idinka dhexdhaceen ma qeexa dadka kale kuma turjumi kartid wuxuu ku qasbayaa halkaa qof inuu kala jiido dadkoo dhan ku cabiro caqligiisu waa keeni kari waaye war qofkan idinka aad isqabsateen qofkan idinka aad iskhilaafteen qofkan aad ishaysataani kama turjumaya inta kale bulshada gabadha tan ku xumaysay kama turjumayso gabdhahoo dhan ninkan ku xumeeyey kama turjumaya nimankoo dhan kama turjumayo waa waxa keena dad badan inay himmadooda hoos u dhacdo guur dambaba ma rabaan inay guursadaan waayo sababtu maxay tahay walwalkiiyo walaaca ugu badan wuxuu ka qabaa waxaa la yidhi nin baa indhabeelay markuu indhabeelay wixii ugu dambeeyey oo arka bakaylu ahaa baa la yidhi markii waxaa la yidhi buur weyn loo sheego ama shay uusan weligii horay u arkin intuu indhaqabay markii loo sheego wuxuu yidhahdaa baa la yidhi bakayle intee ka leegyahay adigu jabkaagii ugu dambeeyey baad waxaa rabtaa inaad ummadoo dhan ku sumadaysid oo calaamad uga dhigtid waa qalad caqligaagu waa kala bixi kari waaye waa tusi kari waaye bini aadamku qof kastaba qofka kale waa ka duwan yahay sida farahoodaas u kala duwan yahay ayay iyagoo dhammi u kala gedisan yihiin caqligaagii waa keeni kari waaye intaa marka maxaa soo haray labadaa qof ee bulshadeenna maanta ku jirtay hagaajiska u baahan in badanoo ka midana waxa laga bedeli karo dhaawicii loo geystay qof u geystay bay ku dhagan yihiin oo inta badan emotionally waa damage garaysan yihiin waa inay marka dadka wax ka sheegaan oo caayaan qofaynan aqoon dumarka inta badan qalbigooda la dhaawacay waxaan ku gartaa markaan arko iyadoo ragga dhan ku dhagan raggoo dhan haddama raggoo dhan bay la seexatay haddama raggoo dhan bay nolol la wadaagtay ma raggoo dhan bay aragtay waxaad arkaysaa mid meelaha taagan oo leh ragga Soomaalidu waxoodu intan buu la eg yahay subxaanallahi alcadiim oo ma raggoo dhan baad adigu aragtay subxaanallah waxaad arkaysaa mid isaguna dhinaca kale taagan oo laga yaabay haween dee ma raba inaan dhehe inuu haween jirkeeda wax ka sheego dumarka Soomaalidu waa sidaa subxaanallahi alcadiim oo ma dumarkoo dhan baa la seexatay maya haddaba hadallada tan waa cadaalad xumo ilaahay ha laga cabsado bini aadamka ilaahay ha looga baqo marka qofka aad wax ku eedeynaysid shakhsigaas aad waa dhihi kartaa shakhsiyaad baa inagu jira shakhsiyaadkaas wax ka hadlaysiin shakhsiyaad saas ayna ku jira dabeecadda aynu bedelno haa dad kale how bedela waa sax laakiin inaad tiradi Soomaalida kulligood waa qariban yihiin kulligood waa halaysan yihiin raggoodu dumarkooduna waa wada qariban yahay waa cadaalad xumo aad qof kasta oo ina ka mid yihiin maanta oo caqli leh fayow uu dareemi karo ما فيعنا عدالة سماء وإذا قلتم فعدلوا ورا عدالة فل هذا الكادرونيس أفكا عدالة هكوصل يسنادو إلهي وقبق هذا الكادرونيس ما أنت بلشد النواد وينو عرقنا ما لها فضيحة كبو حدوبي بدن كودو بدينهن صح markaan soo gunaanado waxaan rabaa anigu fikir ahaantayda inaan raahdo dumarka Soomaalida qaar xun waa ku jiraan ragga Soomaalidana qaar xun waa ku jiraan aniga adigan dhexdan taagan labada dhinac inaynu kala xigsanno ma ahane waa inaynu cadaalada iyo waxa jira xigsanno taasaan aakhiro iyo ilaahay hortagiisa wax kaga helaynaa laakiin inaynu dhinacuun la safarno maxaa yeelay uun haweenka ama aan iraahdo anigu ragga oo raggoo dhan maxaa iga galay ma lawyer baan u ahay ma qareen u doodaan ahay ragga anigu maya xilka aniga la ima saarin tayada la saaray waxaan arkaan wax ku xukumaya gobolkan haddaan joogo rag badan oo waxaa jira xabsiyada ku jiro dumar u diray oo dulmi loogu diray oo ma intaasay ku ekaatay ma halkaasay arrintoodu ku degtay maya ilaahay baa samada wuxuu kaga soo diray cudurro inay iyadu ku intifaacsan weeday baawur saa Mareykan ugu dhex wadato oo ciriiri adduun faqri caruurteedii ibtilo masiibo dhan adduun in la isugu keeno sonkor balaayo cudurro nooc doona ha noqdo isagu xabsi baa iska galo adduunkan iyo dhibkiisa iyo dunuubtiisa iyo macaasidiisa iyo waxa indhihiisu arkeen wax dhagtiisu maqlaysayo buuba ka tagay isagu xabsi baa la geliyaba halkaas ku jira ilaahay buu halka ku caabudi kara oo qof kasta markuu dhinto xab wuxuu galaa xabsi la yiraahdo qabri inagu waxaanu haysanaa qabri min sax waa xabsi ilaa aakhiraad ku sugaysid kuma naansan hadii xataa qaadato halka aynu amal samaysano halka aynu amal wanaagsan u diyaarsano faaruqa ee hadda barafka da'aya dad baa gododka ku jira qaboobaha dad baa gododka ku jira kulaylihiina markuu yimaado waa ku sii jiri doonaan adiguna lama garanayo inaad bari ka mid noqon doontid marka la fiiriyo dhinaca kale rag badan oo dumarkoodii xumeeyay way jiraan oo wax u geystay waxaan garanayaa nin
baa wuxuu lahaa carruur badan ilaahay baa carruur siiyey isaga iyo xaaskiisii dee markay carruurtu waddankan xoogaa bataan laguma tarbiyadayn karo waxyaaba badan oo dhibay dadku la kulmaan qurbaha idinku kama warhaysaan dadkiina weliba gaar ahaan Soomaaliya jooga waxa dhegta ka maqasheen baa laga yaabaa inay idin soo gaaraan laakiin xaqiiqada ma ogidin waxay isagii xaaskiisii ku heshiiyeen baa la yiri in ay carruurta iyo reerka wadaan oo ay meel carruurtii diintooda lagu ilaalin karo aakhiradoodina ay ku badbaadayso in la geeyo diintii iyo quraankii lagu baro waxa la yiri ninkii markay saa ku heshiiyeen xaaskiisii lacagtii ay intaasoo sano urursanayeen buu qaaday wuxuu yiri carruurtan guri u soo kireynaya meel baan u soo diyaarinaya dugsiyadii wax walba ayaan soo fiirinaya waan soo laabanaya wuu baxay Nairobi buu ka degay markuu Nairobi ka degay buu inan yaroo dhabana guduudan ag fariistay lacagtii loogu talagalay ninkaasu inuu carruurtiisa iyo reerkiisa uu ku badbaadiyo ragga koraya iyo dumarka koraya iyo iimaan la'aantan iyo waxan aynu arkayna dhex joogniya qaawanidan iyo fawaaxishtan ilaa dadku in badan oo kamid ma sheegi karaane way iskala qabsadeen a lot of people are desensitized maba dareemaanba dareenkaas uu dhig maalinta ugu horreysay markaad gabar qaawan aragtay baa la acuud billahi minash shaytaan rajim maalinka dambe suuq oo dhan haduu qaawan yahay caadi bay kula noqonaysaa marka dambe waa dareenkii waa desensitized dareenkii dhan wuu guuray waxa soo caadi bay noqdeen laakiin qofkii ilmihiisii yarka ahaa macnaha ka naxaya marka Afrika uu geyn ilaa uu ilmihiisa soo caqlisado quraankii soo barto maartay saasuu sameynaya waxa dhacday marka ninkii markuu baxay Afrika tagay gabar yaroo Nairobi iska joogto say protein uga dhargeysay aan shaqaynin oo guri iska dhex fadhido iyadoo uu iska shaqeysa shaqo kale baan hayn buwaag fariistay waxa la yiri waa la xirooday habeenkii u horeeyay la yiri intaysan gabadhiiba intuusan ba korkeediiba taaban bay dharka intay xooratay waalatay alaabti jijabisay baa la yiri ay banaanka u soo carartay war maxaa dhacay gabadhii waa waalatay qac waa ku dhufatay lacagtii ka gubatay intii yareedu haystay laga furay ilaan waxa iraada haddaad nin tahay guurdoon aad tahay hase yeeshee ogow waxaa jira dumar badan oo saasoo kale laga yaabo inaad isleedahay adigu xaasas baa ilaahay kuu baneeyay laakiin ujeedadeeda dhanba ay tahay guursiga ay ku guursanaysa ay tahay inay danteeda kugu gaarto you don't know ninkan wuu baxay Afrika dig markuu yiro uu tagay gabar yar buu iska ag fariistay gabadhii waa ka waalatay kharash iyo wuxuu haystayna ka bax hadda ogaada waxa la yiri mira gunti ku jira kuwa geed saaran looma daadiyo sax ninkaas waa soo laabtay isagoo Mareykanna guri ku lahayn kii kalena uusan guri u ahayn oo baaba isagoo labada dhanba gacmo maran buu soo laabtay maxaad filaysaa marka ninka Mareykan ku soo laabtay isagoo gacmo maran xaaskiisiina masayr iyo qoorta isugu jiraan maxaad ka dareemi halka hadda inta cunuga uu islaha Afrika ula cararay geey ku soo bil Charles Portigooda qoorta loo geliyaa marka Charles Portiga qoorta marka loo geliyo rag badan ee Mareykan way ka cararaan Charles Port qofkan fahansanayna waa lacag qasab jeegiisa lama weydiinayo ninka dawladdu jeegiisa ka jaraysaa gabadha u diraysaa qasab hatta choice ma lahan ragga Soomaaliya jooga biilasha bixin waaya haday dawladii nidaaminoo jiro oo raggaas sida lagu sameyn lahaayo jeega shirkadu ka shaqeeyo laga goyn lahaa waxaan u maleynayaa xaq darro badan oo awlaadeena iyo dumarkii aynu hore u soo qabnay lagu hayo waa laga badbaadi lahaa saadarteed rag badan oo iyaguna xumeeyay oo aan aqli lahayn waa jiraan waxaan dhamaantiin idin leeyahay meel kasto adduunka aad ka joogtaanba dhamaantiin waxaan idin kula dardaarmayaa waxa laga yaabaa videogan kan ku xigay inaan dib ugu soo noqono tacsideeda ka aragtaan channelkayga ilaahay raxmaan ayna wada dambi dhaafinta ilaahay ka cabsan kartaan ka cabsada qof walba oo cadaalad samee qof walba intaad cadaalad fali kartid cadaalad fal adduunkan intaad joogtid baad wax ku tahay laakiin mar haddaad aakhira ka aado ka tagtid waxba dunida kuma tid dhamaantiin intaynu dib video kale ugu kulmayno walaalahay waanu idinkaga tagaya haddaan wax iri qaldan aad dhibsateen iska kay cafiya naftayda iyo shaydaan bay ka ahaadeen wixii gafaan sheegay haddii aan saxsanaana ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaatay dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh